kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada janalka wararka Soomaalida waa 24ka bisha 6 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga saaka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah ammaanka magaalada Dhuusamareeb oo si weyn loo adkeeyay iyo wafdi uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Khayre oo ku wajahan magaaladaasi maxaad ka ogtahay halka uu ku dambeeyo madaxweyne Xaaf oo shalay isaga baxay magaalada Dhuusamareeb iyo xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka oo ku wajahan magaalada Cadaado hogaamiyaha xisbiga himilo qaran oo war ka soo saaray xaaladda Galmudug oo una baaqay dawladda federaalka inay faragelinta ka joojiso maamulka Galmudug xildhibaan fiqi oo shaaciyay sababta Xaaf ku qasabtay inuu isaga baxo magaalada Dhuusamareeb soona bandhigay damaca villa Soomaaliya ee Galmudug gudoomiyihii maxkamadda sare ee Puntland oo geeriyooday al-shabaab oo laga saaray deegaano muhiim oo ay ka soo abaabuli jireen weerarada halista ah ee ka dhanka dawladda federaalka iyo dadka shacabka iyo Trump oo dib u dhigay qorshe ka dhanaa dad ay Soomaali ku jiraan intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan maxaad ka ogtahay halka uu ku dambeeyo madaxweyne Xaaf oo shalay isaga baxay magaalada Dhuusamareeb iyo xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka oo ku wajahan magaalada Cadaado madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa ku sugan deegaanka Gudin laba ee gobolka Galgaduud halkaas oo kulamo kala duwan kula leeyahay qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka kulamadan ayaa waxa ka qayb galaya waxgarad ka yimi magaalada Cadaado oo lagu wada inay gaaraan magaaladaasi kulamadan ayaa looga hadlayaa sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta waxgaradka deegaanka iyo maamulka Galmudug isla markaana laga shaqeeyo sidii dib loogu soo celin lahaa inay Cadaado ka shaqeeyaan hoggaanka Galmudug wasiir ka tirsan Galmudug ayaa inoo xaqiijiyay in madaxweynaha uu gaari doono ilaa iyo magaalada Gaalkacyo isla markaana uusan ku laaban doonin magaalada Dhuusamareeb dhanka kalena magaalada Cadaado waxa maalinta biritaa ku wajahan senatare iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya si wax looga qabto xaaladda cakiran ee ka taagan magaaladaasi wafdigan ayaa waxa kamid ah xildhibaano doonaya inay ka hortagaan faragelinta ay sheegeen qaarkood in dawladda dhexe ay ku hayso maamulka Galmudug gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ayaa lagu wadaa inuu tago magaalada Cadaado isla markaana uu hogaamiyo dadaalo lagu afjarayo khilaafka Galmudug waxa sidoo kale xildhibaan ka tirsan Galmudug ay ku sugan yihiin magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya in ra'iisul wasaare Khayre uu tagayo magaalada Dhuusamareeb maanta iyadoo wafdi hordhac u ah safarka ra'iisul wasaare Khayrena ay shalay gaareen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud sidoo kale ammaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo ciidamada la dhigay garoonka diyaaradaha iyo xarumaha waaweyn ee magaalada Dhuusamareeb waxaana warar kale oo soo baxay ay sheegayaan in ciidamada cad oo ah Sheekh Shaakir ay la wareegeen xarumihii maamulka Galmudug gaar ahaan xafiiskii madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo shalay isaga baxay magaalada Dhuusamareeb dhinaca kalena hogaamiyaha xisbiga himilo qaran ayaa war ka soo saaray xaaladda Galmudug uguna baaqay dawladda federaalka inay faragelinta ka joojiso maamulka Galmudug war ka soo baxay xisbiga himilo qaran oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa looga hadlay xaaladda kacsan deegaanada maamulka Galmudug xisbiga ayaa ugu baaqay dawladda dhexe ee Soomaaliya inay joojiso faragelinta ay ku hayso maamulka Galmudug war ka soo baxay himilo qaran ayaa u qornaa sida tan himilo qaran waxa uu ka walaacsan yahay saameynta dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee bariyahan dambe ka aloosan deegaanada maamulka Galmudug dadka ku nool dawlad goboleedka Galmudug waxay muddo ku noolaayeen nabadgelyo iyo xasilooni toos ah oo u baahan in la xoojiyo lana mideeyo awoodda dadka deegaanka si loo adkeeyo dawladnimada xisbiga wuxuu bogaadinayaa dulqaadka iyo xilkasnimada dadka reer Galmudug wuxuuna ku kalsoon yahay inay ka guuleysan karaan xal u helidda xiisadda hadda ka taagan Galmudug xisbiga wuxuu ka digayaa faragelinta sharci darrada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku hayso maamul goboleedyada guud ahaan waxa uuna xisbiga ugu baaqayaa xukuumadda federaalka inay joojiso kana waantowdo arrintaasi xisbiga himilo qaran waxa uu ku baaqayaa in siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka culimo u diinka waxgaradka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Galmudug ay ilaaliyaan midnimada iyo xasiloonida si looga fogaado wax walba oo dhalin kara inuu daato dhiig sokeeye in xukuumadda federaalka ay ka fogaato faragelin kasta oo horseedi karta kala qaybin iyo iska horimaad bulshada dhexdeeda iyo inay ka dheeraato wax walba oo keeni kara qalqalgelinta nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanada Galmudug iyo dhammaan dhinacyada ay qusayso xiisadda hadda ka taagan Galmudug ay dhowraan shuruucda iyo heshiisyada lagu dhisay dawlad goboleedka Galmudug ugu dambeyntiina xisbiga himilo qaran waxa uu soo dhaweynayaa dadaal kasta oo looga gol leeyahay
soo dhaweynta iyo xoojinta wadajirka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Galmudug. Isla wararka arrimaha Galmudug ayaynu ku guda jirnay xildhibaan Fiqi ayaa shaaciyay sababta xaaf ku qasabtay inuu isaga baxo magaalada Dhuusamareeb soona bandhigay damaca Villa Soomaaliya ee Galmudug. Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana ka soo horjeeda aragtida dawladda ay ku maamulayso dalka ayaa ka hadlay ka bixitaanka xaaf ee magaalada Dhuusamareeb. Fiqi ayaa sheegay in bixitaanka xaaf uu ka dhigan yahay in Dhuusamareeb ay isaga baxeen xaaf iyo maamulkii Galmudug. Fiqi ayaa weerar uu ku qaaday Sabriye ku sheegay inuu la mid yahay baabuurta isqarxiso ee Al-Shabaab marka hore ku furtaan weerarada ay ku qaadaan hoteelada iyo xarumaha dawladda. Waxa uu sheegay in Sabriye albaabka uu furayay qeyra si uu u imaado Dhuusamareeb. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook xildhibaan Fiqi ayaa u qornaa sida tan: magaalada Dhuusamareeb madaxweyne xaaf iyo Galmudug waa ka wada baxeen waxaana isugu soo haray laba kooxood ee Villa Soomaaliya iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca. wasiir Sabriye iyo wafdigiisa kama duwaneen baabuurta walxaha qarxa lagu soo rakibo albaabka hore ee goobta la weeraro lagu furto kadib kooxo qamaan oo hubeysan ay goobta soo galaan sida safarka qeyre ee la sheegay inuu halkaasi ku tagi doono. wada hadalka labadaasi kooxood kama dhigna mid Galmudug arimaheeda quseeya. dadka degan Dhuusamareeb iyo agagaarkeeduba waxay muujiyeen goobannimo muddadii shirqoolka abaabulan uu socday waxaanay madaxweynuhu u muujiyeen hiil iyo garab istaag. geesta kalena gudoomiyihii maxkamadda sare ee Puntland ayaa geeriyooday. gudoomiyihii maxkamadda sare ee Puntland Yuusuf Xaaji Nuur ayaa ku geeriyooday dalka Turkiga. allaha u naxariistay marxuumku waxa uu Soomaaliya ka soo qabtay xilal kala duwan waxaana ahaa mas'uulkii ugu horeeyay ee loo magacaabo gudoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland. sidoo kalena waxa uu ka qayb ahaa buddigayaashii Puntland isagoo soo qabtay xilal kale oo muhiim ah kuwaas oo ugu qareemayay horumarka dalkiisa iyo dadka Soomaaliyeed. madaxweynaha Puntland mudane Siciid Cabdilaahi Dani oo ku hadlayay magaciisa kan golayaasha Puntland waxa uu tacsiyeynaya shacabka Puntland bahda garsoor iyo mas'uuliyiinta maxkamadda sare geerida allaha u naxariistay marxuum Yuusuf Xaaji Nuur. si gaar ah waxa uu tiiraanyada u la wadaagayaa eheladii asxaabtii qaraabadii iyo qoyskii uu ka baxay marxuumka. ugu dambeyntii madaxweynaha Puntland mudane Siciid Cabdilaahi Dani waxa uu alla ugu baryay marxuumka inuu dambigiisa dhaafo su'aasha qabrigana u saqiro kuna abaalmariyo jannatul firdaws samir iyo iimaan allaha ka siiyo eheladii asxaabtii qaraabadii iyo waliba qoyskii uu ka baxay ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay. Al-Shabaab ayaa laga saaray deegaano muhiim oo ay ka soo abaabuli jireen weerarada halista ah ee ka dhanka ah dawladda federaalka Soomaaliya. ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay howlgalo ka fuliyeen deegaano hoostiga degmada Baraabe ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. howlgalkaas ayaa waxaa horkacayay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax waxaana ciidamada ay Al-Shabaab kala wareegeen deegaanada Xarshaanley sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalka aan ku gaarnay deegaanka Xarshaanley ee degmada Baraabe halkaas oo kooxda nabadiidka ay ka soo abaabulayeen falal lagu dhibaateynayo shacabka caasimada Koonfur Galbeed waxaana uga mahad celinayaa ciidamada ammaanka hawsha ay ka hayaan gobolka. sidoo kalena waxaan bogaadinayaa ciidamada danab oo nabadiidka ka saaray deegaanka ceel Saliini ee degmada marka ayuu yiri gudoomiye Najax. sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in howlgalada ay ciidamada dawladda ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ay sii wadi doonaan ilaa inta Al-Shabaab ay ka saarayaan. si kastaba howlgalkan ay ciidamada dawladda kula wareegeen deegaano cusub ayaa ku soo aadaya xilli shalay howlgal ay ciidamada danab ka sameeyeen deegaano hoostiga degmada marka ay kula wareegeen deegaanka ceel Saliini ee gobolka Shabeellaha Hoose. dhanka kale ciidamada danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa qorsheynaya inay dib u howlgeliyaan biyood ku yaala deegaanka ceel Saliini oo kooxda nabadiidka Al-Shabaab ay ku gubeen dadka deegaanka ceel Saliini ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka biyo diiday inay baadsiiyaan leeshiyada Al-Shabaab. taas bedelkeedana waxay kooxda argagixisada gubeen ceelkii biyaha ay ka cabi jireen dadka deegaanka oo awalba la daala dhacay dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha. gaashaanle Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Jini Qaar taliyaha ururka afraad ee ciidanka danab oo hogaaminaya howlgalka ayaa sheegay inay ku dadaali doonaan dib u howlgelinta ceelka deegaanka ceel Saliini oo ay maleeshiyada Al-Shabaab ay gubeen. ugu dambeyntiina Trump ayaa dib u dhigay qorshe ka dhan ah dad ay Soomaali ku jiraan. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa dib waxa uu u dhigay qorshe cusub oo lagu musaafurin lahaa dadka soo galootiga ee ku nool dalkaasi gaar ahaan kuwa sida sharci darada ah ku jooga dalka Mareykanka. go'aanka musaafiriska ah oo soo baxay maalin ka hor ayaa madaxweyne Trump uu sheegay in muddo 2 toddobaad uu dib u dhigay qorshahaasi musaafiriska isagoo sababta ku sheegay inuu aqbalay codsi uga yimid mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga.
amniga shalay oo axad ahayd ayuu bilaaban lahaa howlgallada ay ciidamada amniga ku beegsan lahaayeen dadka sida sharci darada ah ku jooga dalka Mareykanka waxaana dadkaasi ku jira dad Soomaali hase yeeshee madaxweyne Trump uu dib u dhigay 2 toddobaad dad badan oo Soomaali oo qayb ka tahay ayaa aad uga naxay go'aanka maalin ka hor ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Mareykanka walow 2 toddobaad uu dib u dhigay balse aan wali la ogaan karin go'aanka kale oo uu qaadan karo guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka wararka Soomaalida waa naga inta fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biiro subscribe saar channelka sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan warbixinada inuu halkan soo gelino waana mahadsantihiin